bogaadinna u dirayaa ciidamada qaranka ee jiidda hore oo guulo waaweyn sida wasiirku idiin sheegay soo hooyey inkastoo aan lahaynin tafaasiishaas sidii caadada u ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iideystaan tabaalooyinkii dhacay ay duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii horena yiraahdeen way dabaal degayaan gaada ayay maantana yiraahdeen dad baa tabaalaysan xaggaas ay isugu yaaceen weerara oo bari fura hase yeeshee waxaan u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay haddii rabadaan lagu jiro haddii iid lagu jiro haddii dhibaato kala dhacdona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaan Soomaaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanu iska celinay nabadgelyo ku wada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan oo mana dul qaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay mar kasta ku soo faragelinayso dawladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanan odhan mar kasta iyadoon diyaar ahayn annagu waxaanu doonaynaa nabad deganaasho iyo inaanu nabadgelyo ku wada noolaano inta ma doonayna inaanu sii durugno waayo xuduudda garow waxba uma jiraan haddii garow halka la isla gaaro xabadaaba gaadhaysa marka annagoo uba muxuu ahaa u danaynayna ayaga inaan dadkaasi qaxaan ayaanu doonaynaa inaanu halkayga ku eegaano adduunyaduna nala aragto xuduuduna maaha xuduud reernimo lagu sheeganaye reer Soomaaliland waa reer Soomaaliland xuduudana Talyaaniga iyo Ingiriiska baa jeexay maaha xuduud ay dawladda Soomaaliya jeexday maaha waxaan u malaynayaa dad ku hawlan dhibaatadii ka dhacday galbeedka iyo duufaanadii in ay wax ka qabtaan dagaal ma doonayaan inay qaadaan waayo dagaal kale xaggan oo natural disaster waxa la yiraahdaa ka dhacay waa ogtihiin in xeebaheennii oo dhan ay dhibaato ka taagan tahay dad lala yahay xoolihii oo dhan madheen la doonayo in dadka loo gurmado bil rabadaan lagu jiro hase yeeshee beryahanba waa ogeydeen in ay gaadhay Soomaaliya in la yiraahdo dadka gobolkan nala reerka ee dawladda ku jira haddii ay annaga xaggayga soo raaci waayeen waa la dilayaa ama maxay ahaydeen waxyaabo aan ka soo sameeyay taas waxay cadeynaysaa inay ayaku muxuu ahaa ay weerarka ahaayeen mar kastana inanka yare hadii taala gardarrada badal intuu carruurta gardarraystaabo haddana qayliyaa ilaada hooyaaba waa la dilay marka taas oo kale weeyaan marka ayaga ayaa sheekadaasi bilaabay ma ku celiyaa hal mid baa ku daraya su'aasha hal baa ku daraya binaadamku waxa la yiraahdaa dad baa lagu dul dagaalamay dad baa la isla jiray dad baa meelay raacaan garan la waxa aaminsantiin tukaraq in dagaal ka socon lahaa ama ciidamadeenu fadhiyo lahaayeen haddaan dalka iyo dadka deegaanka iyo dadka deegaankaas iyo deegaankuba aan ciidamada la socon oo taakuleynay waxaan aaminsanahay reer Hargeysa inay uga taakula badan yihiin inay uga macnaha support badan yihiin haddaanay taasi jirin ma suurta gashan in ciidamadeenu guula ka soo hoyaan oo tukaraq ka dagaalamaan marka waxa la sheegay iyo waxba oo sheegtay iyo xaqiiqada dhulka taala ka mid ana ugu dib anaga tagnay anaga la soo shiray anaga dadkii deegaanka aragnay dad boqolkiiba boqol ka midaysan dal iyo deegaanba inay ciidamada daba taagan yihiin iska daa kuwa shishe oo iyaga ay la jooga oo godqaboobay inta ka shishaysta baa noo imanaya war maxaa idin haysta adeer baad soo dhaqaaqdaan xaqiiq weey maxaa u soo dhaqaaqay weeyeen marka inta yar leedahay xuduudda maxaa xuduudda u gaar weey xuduuddu waxa weeyaan garow waa caasimad say ku sheegteen caasimad markay tahayna wax xuduud caasimadu waxay leeyihiin wax xeerar gooni ay leeyihiin
distancega aanu dib uga soo istaagnay oo ilaa 60 kilomitir waxaan uga joogsanay dadka iyo mujtamaca deegaanka ku nooli inay xasilooni ku noolaadaan annagu mar allaba objective-ka ayaga ama ciidanka ama shaqada dawladda ma doonayno inaanu dad barakicino in dad deegaan oo xasiloon inaanu culaad gelino بالعكس واركتان دي حاجة كلا كسعتها وحيالها لبتا يجوش إن سينا ينوح كميدا وده وهجوم يونين استفاعي تاسام سنت سكوبية تاسو عشر